wuxuu dhahay mid ka mid ah macallimiinta Jidda anigoo ku jira qolka macallimiinta waxaan shubtay koob shaax si aan u cabo waxaana yeeray gambaleelka iyadoo ay tahay in maamulaha iskuulka uu yahay mid aad u kulul wuxuuna jecel yahay inay macallimiinta xaadiraan fasalka mar alaala markuu gambaleelka yeero sidaas ay tahayna shaaxa aad ayuu u kululaa waxaan arkay shaqaale Filibiin ah waan u dhoola cadeeyay waxaana siiyay koobka shaaxa maalintii xigtay waxa ii yimid shaqaalihii Filibiinka wuxuuna igu yidhi asigoo yaaban tani waa markii ugu horeysay oo aan arko dhoola cadeynta mid ka mid ah macallimiinta iska badaaye oo isii koob shaax ah waxaad ba u malaysaa inay wax ka qaldan yihiin xaqiiqdii waxaan la yaabay hadalkan oo igu yidhi shaqaalahan waxaana hor istaagay anigoo dhoola cadeynayo waxaana ku dhahay waxaan rabay inaan ku sharfo waxaanu nahay muslimiin tanina waa dabeecadeena yaa ayyuhalladhiina aamanu ittaqullaha wa quluu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما run ahaantii wuxuu igu jawaab celiyay hadal qalbigayga taabtay dareemahaygana kiciyay waa markuu igu dhahay halkan waxaan joogay sanad cidna ilama hadlin waxaan ku sii nagaaday 2 sano qof idin ka mid ah igulama hadlin xitaa hal eray ama dhoola cadeynba kadib wuxuu igu kadiyay kiis aan la yaabay waa markuu ii sheegay inuu haysto shahaado master oo cilmiga sayniska ah dhibaatada daran ee faqriga haysta awgeed ayaa ku qasabtay inuu aqbalo shaqadan ugu horeyntii ma aanan rumaysanin kadib waxaan ku dhaqaaqay inaan imtixaano waxaan ugu yeeray guriga halka gabadheedii ay ahayd fasalka 11aad waxayna haysatay su'aal ku saabsan cilmiga sayniska kadib waxaan u soo bixiyay buugii cilmiga sayniska kaasoo ku qornaa luqadda Ingiriisiga wuxuuna ku jawaabay jawaabta mid ugu saxan markaas ayaan xaqiiqsaday inuu hadalkiisa saxan yahay maalintaas wixii ka dambeeyay wuxuu noqday saaxiibkii Filibiinka inuu soo booqdo maalin walba Jimcaha waxaana bilaabay kulan kasta inaan uu sheekeeyo islaamka ulana dhaqmo dhaqanka midka ugu fiican iyo jacayl dhab ah 2 bil kadib waa uu soo islaamay kadib wuxuu ku qanciyay in ka badan 20 asxaabtiisa ka mid ah inay soo islaamaan sababtuna waxay ahayd dhoola cadeen iyo koob shaax ah waxaan ku dhahay naftayda run ayaa sheegtay rasuulka Allah la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talq hakarin wanaaga waxba haba kula kulantidee walaalkaaga waji furan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم